dhaqanka nabadeynta Soomaaliyeed waa mahadsantihiin maalin dhoweed baaqi aad jeediseen oo ahaa sii deysmadii Sheekh Mukhtaar Robo annaga maanta waxaan idinku yeernay waxa waaye inaan idinku mahad celino tan kale ashtakaan qabnaa annaga dacwaan nahay saa ka warqabtaan odaygaas 2 sano xiran yahay wax uu ku xiran yahayna ilaa ay hadda ma jirto wax maxkamad la soo saarayna ma leh waa nin 8 sano duurka ku jiray dagaalamayay shabaab la dagaalamayay dawladdii ay u yeertay baasaboor ay siisay dibadda aaday ilaa ay hadda wuxuu ku xiran yahay moogin qofka 24 saac gudihiis waxaa la rabaa 48 saacadood in maxkamad la geeyo wax loo haystana ma naqaan dadkii shabaabka ahaa hadda dawladdii ku jiro oo qaarkood ay saraakiil waaweyn yihiin oo jeneraale ay yihiin oo dawladdii u shaqaynayo nin ciidankiisii hadda dagaalamayo saa ka warqabtaan duurku ku jiro ciidanka kaliya hadda shabaab la dagaalamayo ayagu waay ilaa abal ilaa goofguduud buure ilaa awdiin ilaa berdal ay ka dagaalamayaan meeshaan ku xiran sababtu u xiran yahayna ma garanayno annaga baaq badan aan jeedinay dawladda dhowr jeer aan la kulannay waxa waaye maanta waxaan idinku yeernay dacwadaas inaad naga qaabishaan madaxda ugu sareysa waddankan dacwo ka nahay oo ninkaas soo xiratay Soomaali xorriyadda waxay qaadatay 1960kii 60 sano laga joogaa anu waxaan dareensanahay maxaa la lahaa inaan gumaysiga ku jirno gumaysigii hore markii laga soo baxay xorriyadda la qaatay ilaa hadda gumaysigan ku jirnaa dawladihii la soo maray xataa dawladdii Siyaad Bare hal generaal aan lahayn annaga wadda Soomaali wadooyinkeeda wadooyin xiran ma leh waxa waaye wadadana xiran Baydhabo iyo wadadan maxaa la Shabeellada Hoose iyo Tambakool saddexda gobol wadooyinkoodu waa xiran dawladdeena u xiran waxa la aadayaa markii maxaa la lahaayay ilaa waxa laga dagaalamayaa Janaay Cabdalle dhulkaasi sabiidi dhulkan dhinacaan walweyn waxay u xiran tahay waa garan weyn waxa maraay wadadaas waa ciidanka Mareykanka oo daafeed joogo oo howlo gaar meesha u joogo macdan mu baaran weey ma naqaan annaga waxa waaye baaburo carab badan ayaa maalin walba jidka soo martay ayagu u furin yahay bas markaan waddankan qeyraadkiisa la baxay dadkiisa maxaa la lahaayay wadooyinkii laga xirtay diyaarado loo furtay dhibka annagana haysto ka koonfur galbeed ahaan ayaa maanta waxa idinku yeernay ashtakadaas aan wadana dacwada ninkan oo inta ku xiran wax dambi aan lahayn ciidamadiisa hadda dib u xureynayo deegaano badan qabsaday oo wadooyinkii furoy inuu inta ku xirnaado ma markan dacwadeena arintaas ay ku saabsan tahay dad walaalo leeyahay Soomaaliya waxa waaye waxaan hadda idinku imaanay waxaan rabnaa inaad naga gaarsiisaan annaga hadalkeena waa la qaadan waayay mas'uuliyiinteena hadalkooda waa la qaadan waayay dadweynaha maalin walba ay banaan baxaan waa la qaadan waayay marka dambe annaga waa tashanaynaa markan waxaan rabnaa odayaal sharaf leh tihiin odayaashii nabaddoonnadii tihiin oo nabadeynta iyo dib heshiisiinta Soomaaliya u waday waxaan rabnaa inaad maxaa la lahaayay madaxweynaha iyo cid alle cidii qusaysa arintan aan noogula tagtaan ninkan lana soo daayo haddii la soo daayn weeye annaga waxa waaye weli isticmaalkan ku jirnaa 60 sano laga joogaa 60kii sano weli isticmaalaan ku jirnaa qisad dhacday idin sheegaa nin ganacsade Siyaad Bare xilligiis xawlaad iska sameeysanay Sacuudi dadka dibadda iyo kulli ganacsi soo sameeyay xawlaad asaga lacagta lagu soo toosinay dadkiisu u gudbinay ama loo waxa lagu xiray waxa lagu xukumay dawladda ay ku xukuntay 3 sano xarig iyo $1 milyan oo $80 kun dhiman sababta loo xukumina afkiisu ku sheegay gudoomiyaha maxkamad shati ma haysan inuu dhahay
ma ilaahay ka cabso waddankan hantida taal arkaysan daaraha ku dhisan oo dadkii dawladda mas'uuliyiinteeda ahayd hantidii waddanku waa la dhacay nina 100 guri magaalada muqdisho ku dhistay wuxuu ugu dhistin waxa waaye wixii shacabka Soomaaliyeed hantidii ay lahaayeen waay wax la xisaabtamay male hadda wax la dhacooya wax la xisaabtamay male nin ganacsada reer xaaji gaabow maxaa lahaay wiilkii kale ka haray waay hadda ka hor 5 wiil oo ayaga ay dhaleen reer xaaji gaabow waxa lagu dilay meeshan siinka dheer agtiisa magtooda ma la siinin markaan walaalayaalow dawladdan dhaxan maxaa lahaay dacwad ku nahay waxa waay dib weyn ay noo geysatay ninkii ugu dambeeyay hadda shalay maxaa lahaay cornel waxa saraakiil waxa lagu dilay saldhigga hodan mehno lagu dilay asagoo qorigiis qabo saldhigga la soo galay lagu dilay xalay 2 qof la dilay waxa waay taargeedana annaga waxaan rabnaa ashtakadaas inaad noogu gudbisaan mas'uuliyiinta ugu sareyso waa kama dambeys waay waxa waay jabhadeena hadda waa dagaalamaysaa haddana waa dagaalamayna haddii arintan wax laga qaban waayo hadalku waxaan ku soo gabagabeynaynaa annaga garnaqsi aan nahay dacwadan wadanaa odayaashii nabad doonadii aad tihiin oo waddanka joogay min fadlag in la noo soo daayo maxaa lahaay muqtaar roobow abu musur hadalkayguna waxaan ku soo